Somalia Somalia بدن بدن Somalia 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 بدن 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 waxaa la jooga dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Brisbane ee gobolka Queensland kuwaas oo isku diyaarinaya markii ugu horeysay inay ka qayb galaan tartamo ciyaareed oo ka furmaya magaalada Gold Coast ee gobolkan Queensland waxayna dhalinta Soomaaliyeed ay matalayaan dhammaan qoomiyadaha Afrikaanka ah ama qoomiyadaha madowga ah ee degan gobolkan Queensland iyadoo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan Queensland ay dhalintaasi ka qayb galaysa ciyaaraha ee 15 sano da'dooda ka hooseysa ay ugu deeqday qalab sportis oo u dhameystiran yihiin dhammaan agabkii sportis ee loo baahnaa waxaana la filayaa ciyaarahaasi oo furmaya maalinta berita ah oo ay isugu imaanayaan dhalinta ka hooseysa 15 sano oo dhammaan daafaha dalkan Australia in dhalinta Soomaaliyeed ay kaalin muuqata ay ka qaataan maadaama ay yihiin kuwa kaliya ee Afrikaan ah ee ka qayb galaya ciyaarahaasi marka mas'uuliyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed ee jaaliyada Queensland waxay aad ugu hambaliyeen dhalintan iyagoo sheegay in tani ay tahay mid dhiirigelinaysa in dhalinta Soomaaliyeed ay sii wadaan hankoodii ah in sportiska ay ka qayb qaataan taasi oo sahlaysa isdhaxgalka bulshooyinka gaar ahaan gobolkan Queensland waa tahay daawadayaal iminkana waxa idin soo gudbinaya waraysi aan la yeelan doono gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolkan Queensland ee dalka Australia Iftiin Ibrahim Iftiin ku soo dhaw waraysigan marka hore waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo maanta halkan agab sportis baad ku haysaan oo doonaysaan inaad wareejisaan yaa doonaysaan inaad ku wareejisaan muxuu waxaan ku wareejinaynaa dhalinyaro kamid jaariyada kamid ah wiligoodna soo ciyaari jiray ayaan u soo dalabnay dharkaas oo u keenay meel goos liiraha koob ka dhaca ee ciyaarahaas ay u socdaan wiligoodna way soo ciyaari jireen marka anagana inaan caawino oo ku tabantaabina ayaan rabnaa maadaama aan mas'uuliyiintina waa gartay waxaan ugu maqaalaa in gobolkan Soomaalida kaliya ee ciyaarahaas ka qayb galaya inay yihiin dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciyaaraha maanta aad u macsalaameynaysan agab ku wareejinaysaan marka taasi sidee ku dhacday baad isleedihiin in Soomaali oo kaliya laga xusho ciyaarahaas inay ka qayb galaan waa su'aal aad u muhiim ah waxaan raadinaynay siday ugu qayb gali lahaayeen dhalinyaradan waa de tartamo badan ay soo mareen wareeg badan ay soo mareen oo ciyaaro badan hore oo soo sameeyeen ilaa iyo de sanad walba ciyaaraha waxa dhaca ciyaaro kale ayaa dhaca ciyaarahaas ayaa looga soo xushay oo ciyaarihii ciyaari jireen dadkii waxay ahaayeen aad iyo aad ciyaaraha ugu wanaagsanaa marka xulka saas ku yimaadeen ciyaaro hore ku soo guuleysan saasana looga soo xulay oo loo keenay inay ciyaaraan teeramkan dhaci doono Gold Coast ka dhici doono inay ka qayb galaan saas ku heleen waxa igu maqaalaa in dhalinta Soomaaliyeed ee gobolkan ciyaarahaasi aadaysa ee Gold Coast ka furmaya maalinta berita in laga soo dhax saartay dhammaan qoomiyadaha kale ee gobolkan nugula nool marka taasi maxay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed aad maartay maxaan ku raahdaa waa arrin maartay farxad u leh maadaama maartay maxaan ku raahdaa dhalintan aad u dhalinta yar ee la soo xushay kullay maartay maxaan ku raahdaa wanaag ay hore u sameeyeen sport maarta aragtile oo muujiyeen oo ka muujiyeen garoomada ku yaala maxaan ku rahaa magaaladan Brisbane ay ka muujiyeen awgeed ayaa loo xushay saasaana maarta maxaan ku rahaa xul ku noqdeen waa garta marka rajadiina ku aadan in dhalintan ay guulo ka keenaan tartamahaasi ama ciyaarahaasi intee gaarsiisan tahay maadaama horta dhalintu ay yihiin dhalin maarta juniors oo maarta maxaan ku rahaa aad iyo aad maarta maxaan ku rahaa u dhalin yar haddana boqolkiiba boqol annaga aad iyo aad baan maartay maxaan ku rahaa ugu rajo weynahay in ay maartay guul ka soo hooyaan garoonkaas ciyaaraha Gold Coast oo ay ka qayb galayaan kaasoo maartay maxaan ku rahaa gobollo badan ay ka soo qayb gali doonaan oo dalka Australia annaga aad iyo aad baan maartay ugu rajo weynahay in maartay maxaan ku rahaa ay halkaas guul ka soo hooyaan waana ku kalsoonahay iminkana waxa ila taagan Axmed Daahir oo kamid ah odayaasha community-ga Soomaaliyeed magaalada Brisbane
أحمد ما أنت كورن درين كاجا إن دلني سوماليات دأدو دشان يتمسنا كهوسيسو لا حشو إن النقدان دلنت وهو رئيسة السوماليات أما دمان قوميدها أفريقيا كاه دجن قبل كان إن عيارها سكقب قطع. horta waa arrin wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay inay dhalin Soomaaliyeed saaki ku matalayaan Afrikaanka degan dalka gobolka Australia Queensland ciyaaraha sanadlaha ay ka qayb galayaan aad baan ugu faraxsanahay haddana team Soomaali oo u carbisan ama la dhihi kara inay wax guulo badan ka soo hoyn doonaan loo rajaynayo ay maanta ka qayb galayaan oo maalidihii iyo wixii ugu qayb gali lahaayeen loo diyaariyay aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa insha Allah inay guul wax ku wada ka keeni doonaan ciyaarta ay la galayaan qowmiyadaha kale وأجرت مركا سبورتس كان دلنت الصوماليين مانتا أي اسكو ديارنا يعني أنا كقب قاتان مدو هالأسبوع يكسرون أيام مجال هذا جول كوست مركا عيارهن مركا يسوء اللادان محب لشدة الصوماليين قبل كان دجن أي وقد دجن تهاي أي كفائدين waxaan filayaa markii koobaad ma aha dhowr jeer bay ka qayb galeen dhalinyaradan daadooda ka yartaa 15 ciyaar sano kala wareega sida Ramadaankii u dambeeyay oo kale guulo badan ay ka soo hojiyaan Soomaalidan waxaan u maleynayaa inay kaalin weyn oo macquul ah ay u noqon doonto ka qaybgalkooda iyo wixii ay kala kulmaan bahalka ayada ah aad bay ugu faraxsantahay Soomaalida degan gobolkan Queensland ee magaalada Brisbane iminkana waxaa garabkayga taagan Daawud Maxamed Cadow oo kamid ah odayaasha community-ga marka rajadiina ka waran in dhalintan ay ciyaarahaasi guul ka soo hooyaan guul badan baan ka rajaynaynaa dhalinyaradan sababta waxa weeye dhalinyaro aad iyo aad loogu bagay weeyo waa ciyaaro badan dad badan baa la ciyaaray Soomaali baa la ciyaartay dad badan oo ajaanib cadaan ah la ciyaaray macnaha way soo baxeen ciyaartooda ciyaar loo bagay weeyo aad iyo aad u qiimo badan weeyo marka waad dhiirigelinayna aad baan u dhiirigelinayna hadduu Ilaahay yiraahdo wayna guuleysan doonaan insha Allah taala waxay ku heleen nasiib wanaag xul bay ku heleen marka waxa way dhalinyaradaas way ku guuleysteen sababta ay ku guuleysteen baana ay ku heleen hawshaas alxamdulillah waan u hambalyeynayna bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah rabbil caalamiin hadduu rabbi ka raali noqdo insha Allah taala xalfadii aan maanta u imaadnay oo muhiimadeeda ahayd in maaragtay Somali Community Association of Queensland ay ku wareejiyaan qaybaha isboortiga dhalinyarta maaragtay sanadkooda uu ka yar yahay 15 aan ugu talagalnay inaan dharkan ku wareejino ayaan insha Allah taala hawlaheeda bilaabayna hadda in ku wareejino وسؤال داويني دلك يا إسكالي وسؤال داويني دلك يا إسكالي النبضاتوني عن ضايع الندامك دولة لمدى شعر بهالي بديو قدهبا دنشرها أمي قلب دقناتا وقلين بالي دقناتا وقلين بالي النبضة دوني عن ضايع الندامك دولة لمدى شعر بالي بديو قدهبا دنشرها أمي كانوا لقناتا وقلين بالي Somalia Somalia بدن بدن Somalia 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 بدن بدن بدن